marka aynu tilmaamno quraanka ku soo arooray nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo ammaantiisa ayaa ammaan ugu filan laakiin weerahan kale waxaan u soo qaadanayay inta aan quraanka rumaysnayni ee rumaysan maqaayis kale oo bini aadamku wax ku qiimeeyaa buu leeyahay inaynu tilmaamno bimaqaayisikum bu nabi maxamed yahay ka mudan marka lagu eego maqaayista bini aadamka ama haddii loo baahan yahay nabi maxamed si dhaba loo qadariyo waxa ku filan quraan iyo xadiis wixii ku soo arooray walidalik ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamayay inuu yahay sayid walad aadam waxaan ahay buu nabi maxamed leeyahay aadamba intuu dhalay sayidkoodii wala fakhr faana kuma jiro bale waxa uu nabigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam aakhiro liwaa'i alxamd keligii inuu shafaaco qaadi doono marka cid walaba ay isdhaafiso shafaacat alkubra inuu isagu yahay maxay liwaa'i alxamdi ka qaadi doona ee shafaaco qaadi doona nusuusta quraan iyo xadiista ka badan weedh bini aadam sheegay oo dhan haddii aynu soo ururino takfiina iyadaa inugu filan laakiin maadaama aad la degantihiin dad aan weli quraan iyo xadiid rumaynin waxaan rabaa inaan tilmaamno cayda nebi maxamed la caayaya inaanay boos ku lahayn bale xagjirnimada reer galbeedka qaybo ka mida waxaa ka mid ah maanta France inaad maxraqadii yuhuudda wax ka sheegtaa waa xadhig kuwii wax ka sheegayna waa la xidhan maalan qaar taariikhda qore qaar ka mida waxay yidhaahdeen 60 milyan may gaadhaynin dadkii yuhuudda meesha lagu dilay cilladu waa maxay daliilkiinnu waxay yidhaahdeen yuhuuddii jarmalka iyo intan degganaydba 6 milyan ma gaadhaynin taariikh ahaan markaannu xisaabino saa daraaddeed 6 milyan hadda may odhanin lama gubin waxay leeyihin tiradaa inta ka yar ka muslim ahaan aniga hadduu ninkii gubay qiranayo uu leeyahay 6 milyan baan gubay iqraarku dee waa markhaati madoon waa gubteen baynu leenahay dan kama lihin inaan idhaahdo yuhuud 6 milyan lama gubin waxba igama saaraa hitler inuu faashista ahaa ama naazist ahaana muranku ma jiro hadday reer yurubku qirtaan oo yidhaahdaan 6 milyan oo dadaannu laynay inkaar baa qabteen baynu leenahay ma waxaan u difaaca ma yaallo laakiin waxaan tilmaamayaa in la yidhaahdo mas'alo dhacdo uun xaqiiqo min xaqaa'iq dunya ka mida haddaad ka hadashana bini aadam dhaawac bay gaadhsiinaysaa yuhuud la yidhaahdo 15 milyan dunidoo dhan markay joogaan ah nebiyullaahi moxamed oo 2 bilyan oo qof rumaysan tahay marka la caayana waa xorriyatulkalaam inay noqotiyo xorriyatulqowl oo maxaa tan kale xorriyatulqowl u noqon weyday waa marka lagu doonayo soomaalidu maxay odhan jirtay la jiifiyaano bannaan wadaad baa ul taagay bay soomaalida odhan jireen marka la rabana waxaa la odhan jiray la jiifiyaano bannaan waa la jiifiyaano bannaan sida u taalla miidiyaha iyo bulshada iyo waxoo dhammi wixii aanay doonaynin indhaha way ka laabtaan ninka reer galbeed ee wax geysta malafkiisaa la baadhaayo maalinuu dhakhtar ma tegey dad buu leeyahay haa wuu waallaa beri buu dhakhtarka la kulmay adiga ka waalani hadduu wax dilo waa muslim terroristu ahaa hataa hadduu waalan yahay uu ka soo baxo meesha uu ka soo baxo cidi faylkiisa dib uma eegto idan waa la jiifiyaano bannaan baynu leenahay laakiin taasi waxay isbeddeli kartaa markaad adigu hadasho markaad adigu muctaqadkaaga iyo diintaada difaacato markaad adigu soo bandhigto nebi maxamed wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam laakiin haddaad adba xishoonayso isleeday talow nebigii miyaad dee ma doodi karaysee maxaad tidhaahdaa haddaanad adba nebigaagii garanaynin dee ma difaaci karaysid waa marka labaad haddaanu adiga qalbigaaga ku weynayn dee dadka kale wuu weynaa kama dhaadhicin karaysid hadduu adiga qalbigaaga ku weyn yahay gaalkan yare dhafoorrada xiirtay oo aad dhafoorrada ka daba xiiranayso oo gaalka surwaalka dabada dilaaciya waa qalbigaaga ku weyn yahay aadna surwaalka dabada dilaacinayso laakiin haddaad cumaamad ama koofiyad xidhato nebi armaad u ekaataabaad sileeda yaan dadku ku garanin sacinka maaha yaa dadku ku garanin ee koofiyadya idan hadduu agtaada ku weynaan waayo adigu waxaad rumaysnayd adigu diinkaagii iyo waxaad rumaysnayd hadduu agtaada ku weynaan waayo dadka kale agtooda nebi maxamed ha ku weynaado suurtagal maaha markaynu innagu nebi maxamed weynayno calayhi salaatu wassalaam ayaa dadka kalena weynaynaya innagay xilkeenna tahay markaasi dadka in badan baan ogaynba wuxuu ahaa
intaanaan ka warramaynaa waa in taariikh baadhay oo wax baratay oo wax eegtay laakiin dadka inta badan dee miidiyahaasa u warrama maalinna sawir yaroo qaldan soo saaraya maalinna hadal qaldan soo saaraya kaasaa u warramaya markaa dadku saasuu rumaysan yihin idan waa xil idinka idin saaran inaynu bashariyada u sheegno nebi maxamed inaanu weynaynoo qurhe inuu yahay rasuulkii loo soo diree badbaadin lahaa aakhiriya adduunba إنه محمد عليه الصلاة والسلام صلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.